soo dhawaada saaxiibayaal mar kale filimku wuxuu ku bilaabanayaa guriga beerta qoys halkaas u yimaadeen si ay farxad ugu qaataan sida sanadkan waxay markale ka soo baxeen guryahoodii si ugu dabaaldegaan guriga beerta oo ay ehladooda asxaabteedii ku casuumi doonaan xaflad qoyska Siimo wuxuu ku koobnaa 3 wiil iyo xaaskiisii 2 mataan iyo halka weyn xaaska Siimo wuxuu ku mashquulsanaa diyaar garowga xafladda markaas albaabka la soo garaacay flaashid ayaa timi iyadoo socota si geedii gabadhooda daqiiqado kadib loo saaxiibtoodii kale ayaa eegin guriga yimid ugu dambeyn James iyo xaaskiisii Sibuuha dadka intoodii badan ma jecleen Subiha sababtoo waxay ka soo jeedo qoys sabool halka kuwa kale aan kuwa hodan joogin sare leh xitaa saaxiibadoodii kale qoyska boqortooyada waxay ka mid ahaayeen gabadhii yareed guriga timid waxay la yaab leh wax kastoo ay cusubto waa la siinayay waqtigan waxay cusubtay Boobin inkastoo in diyaar markaas aabaheedii Siimo waxay u bixeen si u keenaan Boobinka xafladda meemna caadi carruurtu waxay bilaabeen inay dareemeen wax walba caadi ahayn waxay bilaabeen in si xun u dhaqmaacay tamaan laakiin waalidiintoodii ogolaa inay sidaas yeeshaan markii Soomin iyo aabaha gabadha soo noqday iyagoo wata Boobinka waxaa la ogeeyay in Boobinkaasi ka soo xadeen dukaanka xitaa ma aysan haysan biyo nadiif oo cabaan qoyska ma aysan sameyn wax diyaar garow markii habeenkii la gaar waqtiga cashada ayaa timid miiska cashada waxaa loo diyaarsaday lama sidii xafladda Christmas-ka laakiin waxa uu yaaka badanayaa inaysan jirin wax cunto ku filan cunto yar ayaa la saaray suxuunta qof kasta wax mur arintaasi kama dhicin kastoo ay hodan ahaayeen wax sahiilamaas maxaa soo arintaasi wararka ayaa muujinaya boqorada qudheedii ay jibisay taasoo dadku dhiirigelinaysa inay degnaadaan iyadoo ku sugnayd goob dhuumaaleysi tani waxay muujinaysaa in dunida ay la daalacayso musiibooyin waaweyn taasoo keentay in sahal la waayo sidaas darteed waxay ku khasbanaadeen inay dukaanka jibiyaan si uu helaan Boobinka sababta magaalada dhan way marneed dadku waxay ku dhoomeen guryahoodii cashadaas meemna caadi waxay cashadii macaslaameysiga dadkana waxay ugu dabaaldegay markii ugu horeysay intaysan dhiman sababta ma jirin wax rajo badbaadin waxaa jirta rumud aad u khatar badan taasoo markii magaalada dadka nool waxay kaas ku dhimanayaan si xanuun badan dadkaas iyaguna waxay ogi in durunta sunta iyaguna soo gaarayso ilaa iyo hadda meel kastoo duruntaasi gaartay dadka si xun bay u dhinteen dadkan waxay isleeyihiin nasiib ayaa leedin wili waa nooshihiin waxay ogeen subaxnimada duruntaas ay soo dhawaan doonto siyaanada iyo dawladda waxa ay sheegay in durunta marka hore ay weerarto neefsadaha dibna maskaxda iyo habdhiska neerfa ilaa uu qof ku dhinto dawladda xal uma helin si loo joojiyo duruntaasi balse waxay jeerskaliin loo bixiyay kastabil si ay dadka si xanuun isu dilaan dawladdu waxay amartay marka la arko durunta madow in la qaato kiniinga si loo dhinto si sahlan dadku waxay raacaan warkii dawladdu waxay rabeen inay si raaxo u dhintaan dhammaantood waxay haystaan kiniinigaas waxayna qorsheeyeen cashada kadib ay cunaan kiniiniga oo isdilaan laakiin Subiha way ka hortimid waxay uur lahayd waxay tiri haddii aan kiniinigaas cuno ilmahayga ayaan dilayaa ma doonayaan noqdo dilaa waxay sidoo kale aaminsanay in dilku yahay qalad waxaa laga yaabaa inaan badbaado wiilka Siimo arrintaas isagoo ka shakiyay sababta dawladda kuma dhiirigelinaysa inaysan isdilin wuxuu aaminsanay markastoo musiibo dhacdo 100% dadka ma dhintaan dadka qaarkood way badbaadaan waxay u maleynayaan in dawladda si urkac dadku u dilayso si dadku yaraadaan waxaa laga yaabaa in dadka qaar ay ka badbaadaan durunta sunta iyo awoodaha sare dadkii kale waxay isku dayaan inay u sharxaan Sibuuha iyagoo la Sibuuha qofna ma badbaadayo ugu yaraan anagu waxayna isnaa fursadan ku dhiman karno dadka saboolka xitaa ma aysan u helin taasi fursad ayagu waxay u dhintay si xanuun badan Sibuuha waxay xasuustaa wiilkeedii ku dhintay xaaladda sida daran maadaama iyagu sabool ahaayeen ma aysan helin kiniinigan waxay habeenkii ugu dambeysay nool yihiin sidaas darteed waxay go'aansadeen inay ku raaxaystaan inta aysan dhiman qaar ciyaar bay ciyaarayaan qaarna film bay daawanayaan qaar kale waxay xasuusanayaan waayihii hore si farxad ugu dhameystaan waqtigooda waxaa la ogaa in farmhouse-kan uu lahaa hooyada xaaska Simon waxay ahayd markii ugu dambeysay qoys ahaan la hadlaan markii gabadhaasi weynaato hooyada Simon ay aragtay in durunta sunta ay soo dhawaanayso si degdeg kiniinigii u dhaqay si u dhimatay si aan xanuun lahayn taasoo ka dhacday horteedii hadda ma uusan u fahmin sababta dawladda u siisay fursad dadka isku dilaan markaas aabiis u sharax inuu arko wadamo kale dadkoo dhammaan si naxdin u dhimanayaan dawladda dadku ugu yaraan
ahaan waxay doonaysaa inay yareyso xanuunka dhimashada laakiin waxaasoo dhan waxay u muuqdeen casnimo maskaxda keli wax aartu ku fikiraa waxa dhici doona marka doronta sunta ay dhaafto ma noolaan doona mise u dhiman doona dhab ahaantii adduunka ama ahaan doona sidii hore aarti wuxuu dareemay in dowladda ay ka curameynayso in dadka isdilaan maxaa weligeedii ma dhicin 100% dadka adduunka hal musiibo inay ku dhintaan dad baa badbaadi doona laakiin mas'uuliyad weyn ay qorsheynayaan si dadku yaraadaan waxaa kaloo dhici karta in dadka ka badbaadi keeska u bedelmi doonaan zombie oo si looga hortago faafidda zombiga dowladda ku khasbaysa inay isdilaan aarti wuxuu isleeyahay haddii aan kiniin qaadin waan ka badbaado keeska haddaan noqdo zombie sidee nolosheedii u keen doontaa wuxuu diiday inuu la hadlo hooyadiisii arrintaas sababtoo hooyadiisii waxay ku jirta naxadin maadaama ay si toos u artay geeri hooyadeedii ayada aarti hadda wuxuu la hadlayaa zombiga kuna saabsan kiniinga sababtoo wuxuu ogyahay in fikirkeedii ee bedesho la xiriirta dadka haween ku wareegsan zombiga waxay u sheegtay inay idin diidan inay kiniinga qaadato aarti markuu taamqol wuxuu ku sii adkaysanay go'aankiisii inuu san isdil wuxuu go'aansan inuu noolaado markaas hooyadiisii ay timi wuxuu u sheegay go'aankiisii in zombiga aysan qaadan doonin kiniinga si la mid yahay hooyadiisii si xun bay u leeyahay wiilkeedii ku aan noocaas u qaatay hadda hooyadii abiis waxay kaxeen waxay ogeeyeen gaariga halkaas ku yiraahdeen wiilkeedii dhimashada waa xaq haddii siyaata maxay tahay sababta uu dhiman lahaana si fudud wax keli u arkay inay tahay fursadoodii dhimashada fudud halkuu si rajo leeyahay wuxuu isku dayay inuu rajisi abiis iyo hooyadiisii balse waxay rumaysiin halka dowladda markii ugu dambeysay bay u sheegeen aarti inay si rab inay si kale u dhinto si xanuun leh markuu ogaay waalidiintiisii ay doonayeen inay si dilaan si u badbaadiyaan way carraa markaas waalidkiisii arkin daruurta aad ugu dhowdahay aarti markuu car wuxuu gaari oo ka dhintay qoys oo dhan oo canan keenini laakiin ilmo yar inuu la ka hor intuusan qamin waxba aarti wuxuu wargaaska sunta abiis wuxuu ka arkay meel fog siimin saddex ugu aarti si wasan ka qarinaya wuxuu geey gurigii dib ugu laabtay laakiin aarti xaaladiisii caafimaad si dhaqsi bay u sii dartay qof kasta wuxuu in kaas ku dhacay aarti waxay kartay inay dhaman doono si xanuun badan sidaas darteed waxay go'aansadeen inay kiniiniga qaataan kulon laabtan qolkoodii si u dhintaa si fudud siimin walaashiisii waxay siisay kiniin saaxiibteedii hurdaysa laakiin saaxiibteedii waa muddo oo kiniinigii way ka soo baxay qoyska siimin sidoo kale waxay isku diyaariyeen inay isdilaan waxay qorsheen aarti siin kiniin laakiin markay arkeen aarti hore u dhintay si naxdin dhiigaya ka socday indhaha sanka dhaga iyo meel kasta markay taas arkeen siimin xaaskiisii aad bay u murgoodaan ugu dambeyntii waxay saxdeen sirrada si wajir oo dhamaantood waxay qaateen kiniiniga markii aarti maskaxda suubiyo waxay bilaabeen isbedesho iyadoo arab inay dhimasho xanuun badan aysan dhiman hadda wiil waxay ku haysay rajeer qalbigeedii laakiin ninkeedii wiil wuu hanjabaya haddii aadan kiniiniga qaadan anigan ma qaadan doono waxaan ku dhiman doonaa si xanuun suubiyo aad bay u jecel ninkeeda sidaas darteed waxay u galatay inay kiniiniga laqdo waxay kadibna waa ay dhinteen qolka hooyada gabadhaas madax adag waxay siisay hooyadeedii gabadheeda kiniiniga nafteedii waxa ay laqad waxay ku dhinteen halkaas saaxiibadii gabadhaas mid kamid ayaa laqada kiniiniga ma doonayay kaliya hadduu qof si fudud u dhinto halkaas saaxiibadeedii kale saaxiibada gabadhaas mid madagtay marka la siiyay kiniiniga hooyadii waxay tiin haddii ay si fudud u dhimanayso saaxiibada inay u dhintaa si xanuun leh sidaas darteed waxay muddo ku dhafatay caloosha gabadhaasi oo halkaas ku dishay dibna il nafteedii waxay laqada kiniinigii waxay dishay sidaasna ay dadkii oo dhan guriga joogo dhintay iyagoo isdilay daqiiqado kadib geeridooda daruurtii qiiqna waxay dushoodii gubtay guriga waxay saacado badan qaateen in daruurtaasi ay baahdo laakiin runtii waxaana la tusiyay in cimilada caadi yihiin baraaf iyo daga dhammaan dadkii way dhinteen marka laga reebo hal ilmaha aarti wiilkan kiniiniga qaadan silmi falaan iyo indhaha u furay wuxuu soo noolaa taasi micnaheedu fikirkiisii wax ahaa wuxuu sheegay in laga laabo in carruurta badbaadi karaan markii daruurtu waxaa dhici karin dadkaasi ay bogsoodaan ama qaar ay dhintaan balse dadkaasi wax ay doorteen inay isdilaan iyagoo kale fursad yar ku badbaadaan sidaas darteed xitaa 3% halka jir rajadii ahayd inay badbaadaan way luntay laakiin wiilkan yara wuu badbaaday wuxuu noqday qof kale ka badbaaday taasoo filimkeeni ku soo xiraysa dhammaan qorsoodii macad in wiilkaasi hadda caadi ahaan doona zombie isku bedeli doono halkaas iyo filimkeeni ku dhamaanaya haddii halkan nolol soo gaartay aad baa u maasan tahay hadduu jana subscribe saaro haddii aan subscribe waxaan ka codsanaa muuqaalka la noo sartay meel dheer noo gaari aad baa u maasan tahay